رئيس الوزراء حسن علي oo loogu yeero afkursho ama dadka qaarkii u yaqaanaan qayrlaawe oo khudbad jeedinayay waxa uu yiri soo faanayo waa markii ugu horeysay tadawira ka sharo waa lagu qoslay waa lagu qoslay Sambalolshe Abdullah Sambalolshe oo waraysi bixiyay isagoo calaacalayoo cataabay waxa uu yiri waa isla qabweyna ibuu isla qabweyna arbacuu isla qabweyna qabweyninka qofasiba u fahmay waxa isku weydiinaya qabweyninka ma wixii loo yaqiin laga bedelay qabweyninka wixii loo yaqiin miya laga bedelay qabweyninku ma ahaynin miya nin dadkiisa difaaca dalkiisa difaaca diintiisa difaacda soo qofka lama jiro hebel waa qabweyn soo qofka ma ahayn qof shakhsiyadiisa sharaftiisa karaamadiisa wax kastaba difaaca soo ma ahayn qofka qabka weyn hadii qabweyninku sida ahaa waa yaabe goormuu qabweyninku noqday qabaan Itoobiya ninuu amrayo laba alif Itoobiyaan oo xabashiya isagoo tarihi lama istirdoonka iyo nabadsuginta qaranka Soomaaliyeed qofkaasi miya qabweyn qabweynka noocaas oo taqaanaan ama dadka qaarkii dhigay waa qof qabweyn waa yaab iyo amakaag qofka qof Soomaaliyeed oo muwaadina laba alif xabashi intuu soo wacay soo dhiib intuu u qabtay u qabiray ninna dalka u soo halgamay u geeyay ee halka laga xukumo ninkaas miya qabweyn wuxuu yiri hadii nuurkiinu kan yahay mugdigiinu muxuu noqon doonaa hadii qabweyninku kaas noqdo qablaantuna maxay noqon doontaa Mustafa Dhuxulow ayaa hadlay oo yiri sirdoonka Ingiriiska ayaan u shaqeeyaa Itoobiya anay u kalsoon tahay qalbigayga xaniga u geeyay ha soo noqonaya laakiin taliya Abdullah Sambalolshe ayaa waxa uu yiri waxaan ahay nin sirdoonka xariif ku ah inaba sugida sirdoonka inaba sugida Abdinuur Siyaad Abdiwaal ayuu weeray hotel Jasiiri ku weeray ayuu bastoolada wata iyagoo qoryo ku hubeysan isagoo shaahay dul tageen soo istaag waa lagu baahan yahay Abdinuur soo istaag Abdinuur وستاي لك الله تقول افتكر كان الله تقول افتكر لا 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 قريو كقاطي دوشودا كبودي وبحي هوتيل كو كبحي وحي صفنا بدح بحي تبتنا waxa la arkay Abdinuur Siyaad oo guriceel iska joogo maalmo kadibna Abdinuur Hindi iska joogo maalmo kadibna Abdinuur Roos ka joogo meesha la yiraahdo waxa la arkay Nairobi oo Sambalolshe doo sirdoonka wax ka yaqaan say ku dhacaysay arimaha say ku dhacayeen xaguu maray xaguu ka baxay Abdinuur wuu baxay wuxuu Abdinuur waxa jooga meesha la Madiino oo guri Axmed Daac joogo wuu weeray Abdi Axmed Daac ma joogo laakiin meel ka agdha wuu joogay wuu waay hadduu xariif yahay Sambalolshe oo sirdoonka hawa yaraatay wax u bilaaban yihiin maxaa dhacay muxuu qabo way Abdiwaal taas waxay ka marqaati kacaysaa وما بلاونا مخابراتك معها نيقان Sambalolshe wuxuu sheegtay geesi inuu yahay laakiin taariikhda baan u celino wuxuu ahaa ninkii haystay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee sheekadii ama halku dhigi boqolkii badanayd lagu xasuusto laakiin dagaal dhacay maalin qura Sambalolshe meel uu cirib iyo jaandiga waa la waayay taas waxay meesha ka saaraysaa sheegashadiisa oo ku sheegtay inuu yahay geesi Sambalolshe marnaba geesi ma aha laakiin waa ninka adag maatay dadka barnaamijyada ah marka uu sheekaynayo Sambalolshe imika waa nafla caari wuxuu xal bidayaa oo ay ka shaqeynayaan inuu dilo ama qaarajiyo ninkii la tartamay xildhibaannimada ka qaatay beeshiisa ahaa inuu dilo dilkaana
waxaa ka shaqaynaya nin la Saadiq John iyo nin la Jaamac iyo nin la Kaafi saddexdaasna ayaa loo xil saaray in la Maxamed Xaaji Jeego lidhaahdo walaashii ay dhashay ayaa doonaya in xildhibaanka la dilo wuxuuna u arkaa jaaniska kaliya ee uu kursi dib ugu heli karo in uu dilo ninka xogtana waa xog biyo ka dhibcaana haddaan been sheegana taariikhda qorayso haddaan u sheegana dib baa lagu xasan doonaa Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in ay ku kalsoonayeen qof aan ahayn ra'iisul wasaare Qayrlaawe iminka cagajuglayn ay bilowday iyo inay tiraahdo kursiga ayaa waxaan ku sii haynayaa oo ku cilinayaa Qayrlaawe isagana waxa uu iminka naf bidayaa oo uu macinsanayaa siyaasiyiin ku xiran imaaraadka uu leeyahay kooxda qadariyiinta ayaa haysato waxaana doonayaa inaa imaaraadka tago oo nisu dhiibo ee gacanigu siiya si dalka looga badbaadiyo farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo kooxda Al-Shaam ee ku xiran ururada argagixisada iyo dowladda qarar laakiin Ethiopia kursiga ma ku celin kartaa Xasan Cali Qayrlaawe